بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xikmadihii iyo warahii abwaankii iyo filosoofkii Britishka ahaa ee William Shakespeare. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale riix kambalelka si muuqaalada soo gelina kugu soo dhacaan markaba. Waxa ka mid ah xikmadihii iyo warahii uu ka tagay qoraagii gabyahagii iyo filosoofkii reer Ingiriis kuwan xikmada koowaad dambiyada waaweyn ee ruuxu galo marka uu dhinto badanka waa laga sii sheekeeyaa balse wanaagyadiisa isaga ayay la godgolaan oo sida isaga loo aaso ayaa iyagana loo duugaa qofku marka uu dhinto waxyaabihiisa wanaagsanaa inta badan walow inagu aan muslim nahay qofka ay diinteenu na faraysan inay wixii si wanaagsanaan ka sheekeyno aan mid dhintay ama qof dhintay xumaantiisa aan soo hadal qaadin haddana badanka dadyowga aan islaamka ahayn qofka wanaagiisa waa inkiraan oo xumaantiisa iyo saambuhaantiisa xumaantiisa waa aad uga sheekeeya walow dhaqankaasi aad moodayso in muddooyinkan dambe aad usoo yaraanayo xikmadda labaad waxay odhanaysaa haddii aad doonayso gabadh jacaylkeeda waa inaad u dulqaadataa oo xamishaa waalideeda yani gabadhaas hadday cara badan tahay hadday dulqaad yar tahay hadday samir yar yani wax kastoo tahay waa inaad ugu dulqaadataa waayo adigaa jeclaaday xikmadda saddexaad waxay odhanaysaa sida loo kulmiyo oo meel la isugu keeno aragtida garaadyahanadu waa ay adag tahay balse sida loo kulmiyo xayn ari ahi waxa ay kaaga baahan tahay ay iyo ari jiro oo qura yani dad aqoon-yahana oo kala fikira haddana kala aragtiyo duwan oo jiraya in hal meel la isugu keeno lagu wada hayaa aad bay u adag tahay marka la barbar dhigo kooxaha kale xikmadda afraad waxay odhanaysaa gabdhuhu waxa ay adduunka oo dhan ka dalbadaanin markaas ay isaga helaana waxa ay isaga ka dalbadaan wax walba xikmadda shanaad waxay odhanaysaa quruxda hantiiluhu waa deeqsinimo quruxda saboolku waa qaneeco quruxda gabadhuna waa dhowrsanaan yani qofka deeqsigaahi marka uu wax bixiyo quruxdiisa muuqata halka qofka saboolka quruxdiisu marka ay muuqanaysaa taa in waxa ama xaaladda uu ku sugan yahay oo uu ku qanco oo ku samro gabadhuna quruxdeedu waxa weeyaan jirka tawajiga midna maaha laakiin waa marka dhowrsoonaanta ay nafteedu dhowrsoon tahay xikmadda lixaad waxay odhanaysaa ma ihi ruux faraxsan haddii aan awoodayo inaan sifeeyo heerka ay farxaddeedu gaarsiisan tahay yani qofka hadduu qiyaas inta badan waxaa aragtaan qofku marka uu leeyahay waan faraxsanahay waa idinka arkaa wuxuu odhanayaa ma qiyaasi karo dareenkayga shucuurteeda lama soo koobi karo yani farxadda sayidka markuu qofku dareemayo ma qiyaasi karayo qiyaas male haddii uu qiyaasi karayo yani intaas farxad kama dhigna weyaan macnaheedu xikmadda toddobaad waxay odhanaysaa xilka mudnaan kale sida boqoradu maaha dembi ee waxa uu dembi noqdaa marka ruuxa hantay maroorsado ee awooddiisa si khaldan u adeegsado isaga oo aan dhowrayn dareenka dadka kale yani xil in la qabtaa ama madaxtinimada in wadan ama meel ama deegaan in meel wax loo qabtaa yani maaha dembi laakiin waxaa dembi ah qofkaas xil kaa haya inuu xilkii u isticmaalo si khaldan oo amarka baawarka iyo awoodda xilka uu isticmaalo inuu dadka kale ugu cagajugleeyo ama uu ku dulmiyo taas khalad ah xikmadda sideedaad waxay odhanaysaa ha isku dayin inaad ku guulaysato dood kastaba mararka qaar inaad qalbiyada hanato ayaa ka mudan inaad doodaha hanato yani mar kasta ama dood kastoo aad gasho ama cid kastoo aad isqabsataa baad adigu mar walba isku taxalijinayso inaad ka guulaysato mararka qaar waxay keeni kartaa inaad dadka qaar qalbiyadooda dhacwayso waxaaba tusaale kugu filan doodaha iyo dee mararka qaar muranada ka dhex dhaca familiyada dad wax kasta isleedahay ku guulaysato mararka qaar waxa laga yaabaa dadku dhawaa inaad qalbiyadooda kale wax yeesho marka mar walba ha isku dayin inaad doodaha aad ku guulaysato adigu xikmadda sagaalaad waxay odhanaysaa dadka doorkaahi waa in aanay la saaxiibin cid aan u dhigmin yani bulshada inta hal doorka ah ee yani aqoon-yahan garaadka xikmadayaasha murtilayaasha inay bulshada u faa'iideeyaan waa sax laakiin qofku inuu mansibkiisa iyo meeqaamkiisa meel ka hooseeyo musliga ma qurux badan xikmadda tobnaad waxay odhanaysaa waan kaa cafiyi karaa 10 gef oo kala duwan balse kaama cafiyi karo 2 gef oo isku mid ah oo aad igu samaysay yani qofku hal khalad qofka wuu uga tanaasuli karaa ama iska diin karaa uga cafin karaa laakiin haddii khaladkii mar labaad adigoo khaladkii hore cafiyay haddii qofkii khaladkii mar labaad uu kugu sameeyo taasi waxay keenaysaa caqabad kale oo qofkan dee miyuu kugu bareeray ma doqonnimo kaa dareemay su-aalo badan ba isweydiinaysaa marka waxaa laga yaabaa qofku inaan mar labaadka uun qofkii sidii hore oo kale aan u cafiyay xikmadda 11aad waxay odhanaysaa doqonku waa kan isku maleeya murtiile
balse murtiiluhu waa ka naftiisa u yaqaano doqon. Yani qofka aan murtida lahayn xikmadda lahayn waa kana isku haysta inuu dadka isagu ugu sareeyo inaan isaga cid ka aqoon, waa qof kaliya naftiisa ay cajibiso. xikmadda 12aad waxay oranaysaa geesinimadu maaha inaad aarsato, balse waa in aad dhabar adeegto oo aad adkaysato. qofka waxyaabaha kugu dhacaa dadka aad kala kulanto inaad mar walba qof walba aad isku daydo inaad ka aarsato ma wanaagsana. xikmadda 13aad waxay oranaysaa inanta kulanka ugu horeeya jacaylkeeda kuu sheegata waxa ay kaaga tegi iyadoo aan xitaa kusii macasalaameyn. taas waxa weeye macnaheedu qofka ama inanta marka ugu horeysa ku aragto hebel waan ku jecelahayba waa aragtidii koowaad. hadhowna dee kuma garanayso aragtidii koowaad sida ay hadalka kugula soo dhiiratay ayaan hadhowteedina ugu dheeranaysaa inay iron banaankeeda iska marto. xikmadda 14aad waxay oranaysaa cidda aynu si daran u jecelnahay ayay maqnaashiyaha iyo fogaantu si kafiirsi leh u xushaan. يعني dadka aan isugu jecelnahay maxabada iyo kalgacaylku naga dhaxeeyaan mar walba jecelnahay in agteena joogaan ayaa waayuhu iyo waqtigu waxay xushaan inay kala fogeeyaan, ama inta badan dadka dee isugu dhow qalbiyadooda ayaa inta badan aad u kala fogaadaan. xikmadda 15aad waxay leedahay adduunyada oo dhami waa masrax weyn oo ragga iyo dumarka oo dhamina waa jilayaasha masraxaas. yani adduunyada waa masrax yani ka wada riwaayad camal, marka dadka ragga iyo dumarku ama insaanka iyo noolahoo dhan waa jilayaal, yani waa kuwan qurxinaya ficilada adduunyada ka dhacaya oo dhan waa kuwa sameynaya iyagu iska. xikmadda 16aad waxay oranaysaa haddii aan nafteena run u sheegno cidna been uma sheegi karno. yani qofku haddii uu naftiisa runta baro naftiisa aad runta u sheegi karo wax walbaba oo runa kula dhici karo dadka kalena iska ilaalinaya ama kama suurtoobaysa inuu iyagana been u sheego. xikmadda 17aad waxay oranaysaa jeclaada ama inabcaada labadooduba aniga waa isugu ka yimid, oo haddii aad jeceshahay mar walba qalbigaaga ayaan ku jiri doonaa, haddii aad inabcaatona ama inacab tahay markasta maskaxdaada ayaan ku jiri doonaa. yani qofka ama jacaylka iyo nacaybku labaduba qof haddii aad jeceshahay haddii aad nacab tahay, haddii aad jeceshahay macnaheedu waxa qofku waa qof qalbigaaga u dhow adiga ku dhowaad aragtidiisa iyo muuqiisa aad ku farxayso mar walba. haddii aad qofka nacab tahay macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi waxa laga yaabaa in sometimes maskaxdaadu aad ugu bato markaa xaasidnimadiisa kugu bato inaad xasado inaad ka xumaato, yani qofkii maskaxdu kaaga wareegaya. xikmadda 18aad waxay oranaysaa bilowgu kuma siinayo run dhammaystiran balse dhammaadka ayaa ku siinaya run dhammaystiran. xikmadda macnaheedu waxa weeyaan wax kasta bilowgooda yani kama sal gaari kartid ama xaqiiqdooda ma soo ogaan kartid waayo bilow baa tahay, laakiin marka aad dhammayso ayaad wax walba xaqiiqadiisa iyo run ahaanshihiisa gaari kartaa. xikmadda 19aad waxay oranaysaa inta aad muujisato wax badan oo kale ha kaaga hooseeyaan, inta aad og tahayna in yar ka sheeg. inta aad muujisanayso qofku yani aqoon ha noqoto cilmi kale ha noqoto wax kasta oo qofka muujisan karayo yani wax kasta oo qofka kasoo muuqan karaya intaa aad iska soo muujinayso ama muujisanayso intaa in ka badan waa inay kaaga hooseysaa. tusaale haddii aad cilmi isku timiso cilmi aad muujisato oo dood lagula yimaado ama aragti lagula yimaado ama falanqeyn lagula yimaado oo aan inta aad muujisan mooye aan in kale kaaga hoosnaalayn yani macnaheedu waxa weeye halkaa waad ku fashilmaysaa. marka inta aad og tahay in ka yasheeg yani wax kastoo aad og tahayna ha soo wada faaqidin oo sida ha wada noqon qof wax kasta og yahay iyo wax kastoo qalbigiisa iyo gudihiisa ku jira mid banaanka keena. barnaamijkan imtixaanaha xikmadda intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale riix kambaleelka si muuqaalada soo gelina kuugu soo dhacaan markaba.